caasho waad mahadsan tahay ciidamo dawladda Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ayaa gaaray maanta deegaan lagu magacaabo Baano oo 8 kilomitir u jira deegaanka Abal oo uu ku sugan yahay Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Cabdi Marayle oo loo yaqaan Abu Mansuur waxaana la rumaysan yahay ciidamada gaaray Baano in ay rabaan inay saacidaan Abu Mansuur oo dhawaan Mareykanka ay ka qaadeen lacagihii dul saarnaa iyadoo maalmihii la soo dhaafina kooxda al-shabaab ay ku hareereysnaayeen deegaanka uu ku sugan yahay Abu Mansuur ciidamadan gaaray deegaanka la yiraahdo Baana sidaad sheegtay uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ciidanka misaga dalbaday mise maamulka gartay in uu gurmadkaas u fidiyo Roobo sida wararka xudur naga soo gaaray ay xaqiijinayaan caashooy Abu Mansuur ma uusan dalban ciidamadaasi laakiin maamulka iyaga ayaa u gartay in ciidamadaasi ay u gaan si aanan loo weerarin deegaanka uu ku sugan yahay ee Abal oo maalmihii la soo dhaafay xiisad colaadeed oo u dhaxaysay Abu Mansuur oo halkaasi ku sugan iyo kooxda al-shabaab ay ku sugnaayeen marka wararka hadda deegaanka ka soo gaaray maxay sheegeen ciidankii mar hadii xagga uu gaaray deegaankana lagu tuhumayo inuu ku sugan yahay Sheekh Mukhtaar Roobo maxaa hadda meesha ka socdo marka ka soo koobin ciidanka halka ay gaareen lama saadaalin karo xaaladda sida ay noqonayso laakiin kooxda al-shabaab iyagu naftirkooda abaabul xoog leh ayay ka wadeen deegaanka Abal oo Abu Mansuur uu ku sugan yahay oo hareerihiisa ay ku sugan yihiin iyadoo ciidamada koonfur galbeedna ay gaareen deegaan ku dhow Abal oo Baano la dhahayo isla markaana 12 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol mudooyinkii ugu dambeeyayna waxaa jiray hadalhayn aad u badan oo ku aadan ciidamada koonfur galbeed inay saacidayaan Abu Mansuur oo dhawaan lacagihii dul saarnaa laga qaaday Mukhtaar Roobo isaga ilaa hadda wax hadal ma laga hayaa oo ku saabsan ciidankan isaga soo gaaray ilaa hadda tan Abu Mansuur wax wara lagama hayo oo ku aadan in uu dalbaday ciidamada Baana gaaray laakiin maamulka iyagu mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa la hadalhayay in deegaanka Abal maadaama kooxda al-shabaab ay ku hareereysnaayeen inay saacidaan Abu Mansuur oo dhawaan Mareykanka lacagihii dul saarnaa uu ka qaaday wax xog ma laga hayaa ciidamada uu haysto Sheekh Mukhtaar Roobo intay leeyihiin cududooda wax xoga lagama hayo ciidamada Abu Mansuur uu haysto iyo tiradooda inta ay yihiin laakiin waxaa la rumaysan yahay ciidamo xoog leh in uu ku haysto deegaanka Abal iyo deegaano kale oo gobolka Boqol ka tirsan mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray isku gurursi ku aadan Abu Mansuur oo ciidamo fara badan gobolka Boqol qaybo kamid ah ku haysto iyo kooxda al-shabaab oo iyaguna raba inay ka takhalusaan Abu Mansuur oo ku sugan deegaanka Abal oo uu ku dhashay waxaad ka warantaa Mukhtaar ciidankan uu haysto amaba saacidaya Sheekh Mukhtaar Roobo ee aan ahayn kuwa koonfur galbeed ma ciidan beeshiisa baa mise waa ciidan ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo isagu la soo go'ay ciidamada Abal ku sugan ee Abu Mansuur uu haysto waa ciidamo kala duwan oo kooxda al-shabaab ka tirsanaa xilligii uu shabaab ka soo go'ayay Mukhtaar Roobowna la soo go'ay mudooyinkii ugu dambeeyay sidoo kale caasho waxa xusid mudan inay jireen ciidamo goosgoosa iyaguna ku soo biirayay dhinaca Mukhtaar Roobow Abu Mansuur marka ciidamo oo beeshiisa kaliya aanan ahayn oo isku jira ayuu ku haystaa deegaanka Abal waxaana isagu uu doonayaa in uu ahaado ama mudooyinkii ugu dambeeyayba uu ahaa awood ka madax banaan al-shabaab oo gobolka Boqol ku sugan iyadoo gobolka Boqolna oo magaalada Xudur xarun u ah ciidamadooda ay ku sugnaayeen magaaladaasi Xudur oo 18 kilomitir u jirta deegaanka Abal aysan weligooda iska hor imaanin ama aysan isku dhicin waxa marka meesha laga garan karaa inay jirtay wada hadal u dhaxeeyay dadka deegaanka gobolka Boqol iyo Abu Mansuur oo ku aadan inaysan labada dhinac isweerarin sidoo kale waxa xusid mudan in ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Boqol aysan marnaba iyaguna isku dayin inay weeraraan Abu Mansuur oo isagu ku sugan deegaanka Abal oo 18 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol iyagoo Ethiopiankana ay fariisin weyn ku leeyihiin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol marka ugu dambeyntii haddaad si kooban noogu sheegto deegaanka Abal waa deegaan noocee
deegaanka abal qiyaastii 18 kilomitir wuxuu jiraa magaalada xudur ee xarunta gobolka waa tuulo laga xukumo magaalada xudur waxaana xusid mudan in deegaankaasi uu kamid ahaa deegaanadii markii shabaabka la aasaasayay deegaanadii laga soo aasaasay oo ciidamada uu kasoo bilaabay Abu Mansuur.